Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haddii aad la nooshahay xanuunka cagaarshowga, iskuna aragtid miisaankaaga oo si degdeg ah u yaraanayo, cunno xumo, qaybta kore caloosha oo ku xanuunto, lalabbo, matag, daal iyo tabar darri aadan hore isugu arag, caloosha oo ku soo weynaata, indhaha oo jaalle noqdo iyo saxaradaada oo midab cadeys yeelato, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka hawlgasha isbitaalada East End. Kansarka ku dhaca beerka wuxuu ragga ugu jiraa kaalinta labaad, dumarkana kaalinta shanaad markii loo fiiriyo kansarada ku dhaca Soomaalida. Waxaa kaalinta koowaad ragga iyo dumarkaba ugu jira kansarka ku dhaca hunguri mareenka, kaasoo maalin dhoweed aan ka soo hadlay, waxaana fiidiyowgiisa ka helaysaa bogga. Kansarka beerka ku dhaca waxaa loo kala qaadaa laba, mid beerka ka uskamay iyo mid xubno kale ku dhacay sida malawadka, sambabada iyo naasaha, kadibna beerka soo aaday, laakiin wuxuu cashirkeena ku saabsan yahay kansarka beerka ka bilowdo. Kansarka ugu badan ee beerka ku dhaca waxaa loo yaqaanaa hepatocellular carcinoma, waana nooca lala xiriiriyo xanuunka cagaarshowga B iyo C. Fadlan soo daabo laba fiidiyow oo aan kaga soo hadlay cagaarshowga noocyadiisa kala duwan, astaamaha lagu garto iyo xilliga daawo loo qaadan karo. Beerku wuxuu ku jiraa dhinaca midig ee caloosha qaybta feeraha ka hooseyso, waa xubinta ugu weyn uurku jirta. Howlo muhiim ah ayuu jirka u qabtaa sida dheefshiidka, sun saarista, nafaqeynta jirka, raysashada dhaawacyada, kaydinta fitamiinada iyo samaynta borotiinada. Sidaa darteed, hadduu beerku cilladoobo, dhibkiisa waxaa laga dareemaa jirka oo dhan. Kansarka beerka wuxuu kaloo ku badan yahay dadka khamriga iyo sigaarka cabo, dadka ku sumooba sunta aflatoxin oo ka dhalata dalagga lagu keydiyay bakaarta, dadka qaba beer subag xad dhaafka ah, iyo dadka isticmaala testosteronka macmalka ah sida qolooyinka jiimka dhigta. Cagaarshowga iyo cilladahan kaleba waxay dhaawac gaarsiiyaan beerka, taasoo keenta in beerku haaro yeesho, kadibna qolfoofo uuna shuuqo. Markaas unugyadii beerka way isbedelaan oo kansarka qaabkaas ayuu ku yimaadaa. Xanuunkan haddii lagaaga shakiyo waxaa laga baari doonaa dhiigga shaqada beerka iyo dhiigga tilmaama kansarka beerka ee loo yaqaan alpha fetoprotein. Sidoo kale sawir ayaa beerka laga saari doonaa. Haddii kansar lagaaga shakiyo, waxaad u baahan doontaa in cad ama dheecaan laga qaado nabarka beerka lagu arkay si loo xaqiijiyo noociisana loo ogaado. Maadaama bulshadeenu ku badan yahay xanuunka cagaarshowga, waa muhiim qofkii qaba inuu si joogto ah ula socdo caafimaadka beerkiisa 6 bilood ama sanadkiiba mar. Hadduu cagaarshowga uu gaaray heerkii daawo loo qaadan lahaana waa inaad qaadataa daawada si uusan beerka dhaawac kaaga gaarsiin. Daaweynta kansarka beerka waxay ku xiran tahay heerka uu marayay xanuunka markii la ogaaday. Waxay daawada noqon kartaa qalliin, kiimiko, gubitaan, toogasho ama in beerka la bedelo. Xanuunkan waxaa kaga hortagi kartaa adigoo iska tallaala cagaarshowga, khaasatan nooca B. Haddii aad balwad leedahayna jooji, haddii aad cayilan tahay miisaanka dhin, hadduu fadhigaagu badan yahayna jimicsi samee. Halkaas ayaan kaga baxayaa casharkan. Wixii su'aalaha noogu reeb qaybta comments-ka ee muuqaalkan. Waana mahadsantahay.